aad baa idin salaamin saaxiibayaal maanta waxaan rabaa inaan idin sheego mowduuc aad u muhiimsan Soomaalida inta ugu badan maanta waxay ku dhibaataysan tahay soo gudbinta fariimaha maanta waxaan rabaa in aan soo koobo in aad fariintaada ay dad ka gadanto waxay u baahan tahay kaliya dhowr mowduuc aan sameeyo waxaan ugu muhiimsan saddexdaas maxaa waaye kow waxa aad soo gudbinaydo in ay noqdaan wax aad adigu fahansan tahay oo aad taqaano waa midda koowaad midda labaad waxa aragto inaad soo gudbido waa in aysan naqan wax iska bilowdo ee iska dhamaado dhaxdeeda waa in laga helaa madadaalo iyo wax qofka dareenkiisa soo jiidan karo midna ha iloowin midno yes adiga kula hadla midna ha iloowin marnaba fariintaada hadaysan ku jirin eye contact in ishaadu ay qabato dadka aad wax u jeedinaydo hal qof kaliya iska fiirinin cirka ha fiirinin dhulkan ha fiirinin mid walba ee hortaada fadhiyo waa in aad indhaha marba mid aad ku qabataa sid ay kaaga saacido in qof walba uu ku soo jeesto oo ku dareemo in aad indhaha ku haydo oo san ka mashquulin in aad indhaha ku hayda midda ku xigto waxa waaye in aad sameeyo movement meesha aad fariinta aad ka jeedinaydo kaliya taagnaanin hadduu masrax yahay dhaqdhaqaaq sameey meel go'an oo aan laga dhaqaaqaynin oo stage ah hadduu yahayna waxaad samaynaysaa gacmaha dhaqdhaqaaj oo movement sameey si dareenka dadka ay kula fahmaan marka qaarkood waxa laga yaabaa dadka aad wax u jeedinaysid in ay ku jiraan dad dhaga aan balahayn waxay caawin luqad u gaar ah oo lagula hadlo dadkaasi aad ama santii assalaamu calaykum